odayada gabooba marbay gaban ahaayeene guxushaaga aan kicinba waa gaananaan jirayee niman guuyo abid yeelan baa geelal foofsada waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana wuxuu ku saabsan yahay maanseyahanadii soomaalidu tixihii ay gabowga kaga calaacaleen dhegaystayaal sunnada eebbe siday ku dureersatay qofkii cimriyaa muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowr ah oo isxiga heerar jiritaankiisa qaabeeya tabartiisa iyo waxmaamintiisana si weyn u saameeya mar waa carruuroo waa dalandal dabadeed waa dhallaan hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa hadduu dhadig yahayse waa dhoocil marka xiga waa kuray ama waa foodley hadday gabar tahay dabadeed waa barbaar hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti marka xiga waa garmadow ama waa hablaweyn hadday dumar tahay marka xiga waa oday ama waa habar marka xigana waa coobir xaaddu caddaatay fadhigana aan ka kici karin kolka uu carruur yahay amaba uu waayeelo qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan ha yeeshee waa ciidan inta uu heerarka dhexe ku jiro oo isaga iyo waalkiis ayay dunidu magan u tahay noloshuna ay ku dhisan tahay sida loo bartay heerarka nolosha ee ay u badan tahay in ruux waliba maro heerka gabowga ayaa ugu dambeeya markaasoo uu fisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku biiri doono taasna waxbaa ka jira inkastoo murtida soomaalida sida ku xusan dhallaannimo dhallinyaranimo iyo xoogtoona aan kor walba geerida lagaga badbaadin lagagana gabban karin waxaa la yidhi oday iyo barbaar uu dhalay ayaa maalin maalmaha ka mid ah xoola wada raacay geed weyn oo ay harsanayeen ayaa waxaa uga muuqday laamo toostoosanoo ula wan wanaagsan noqon kara kolkaas buu inankii inta godin qaatay geedkii fuulay si uu uga soo goosto laba uloodoo isaga iyo odagu ay geela ku ilaaliyaan goor dhexe oo uu weli hawshii ku jiro ayuu midhacsaday hoos iyo duqa dhalay ee hooska geedka doonyaysan mase madaxu waa wada ciro mase waa wada xooshoo tin madow laguma arko masaxaaddii gacnuhuna way wada caddaatay kolkaas buu damcay inuu la kaftamo oo sarbeeb aan ka nixin uu kula kaftamo wuxuu yidhi aabbow maxaa malakamowd midha u bislaaday odaygiina waxa inankiisu u jeeda intuu gartay ayuu ugu jawaabay sarbeeb kale oo waaye aragnimo xambaarsan intuu kor u dhowray ayuu ugu tanaagooday maandhow hadda curdankana waa ku cunaayo ogow inkastoo marka horeba la kala geed adeegsan yahay haddana waxay u badan tahay ruuxa gaboobaa inuu cudurradana u nuglaado taasoo noloshiisa sii adkaysa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf oo raggii cimriyey ka mid ahaa ayaa bilowga toddobaatanadii qarnigii hore waxaa gurigii uu xamar ka deganaa ku booqday qoraaga soomaaliyeed ee caanka ah sheekh jaamac cumar ciise caafimaadkiisa kolkuu wax ka weydiiyey ayuu cismaan ku jawaabay aniga iyo gabow baa collownay waxba kolkuu iga qaadi waayey ayuu ciidan doontay markaas buu cudur soo helay dabadeedna waa iga adkaaday wuxuu gabowgu ku jiraa dhibaatooyinka waaweyn ee laga calaacalo dadka qofkii aad u waayeelaana uu ka sheegto xagga suugaanta soomaalida haddaan eegnana waxaa muush ka ah murti badanoo tix iyo tiraabfaneedba leh arrintaasna si faahfaahsan lagaga hadlay waxaa jira gabayo ay tiriyeen qaar ka mid ah maanseyahanadii da'doodu badatay kuwaasoo si wacan u tilmaamay siyaalihii uu guga weyni noloshooda u dooriyey ee marar badan uu u saxariirshay raggii haddaba da'doodu weynaatay dabadeedna maansada kaga calaacaray waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray maxamed xaashi oo reer ciideed ahaa markuu aad u cimri dheeraadayna ka sheegtay sidac wixii uu da'da ka mutay farshaxan buu ahaaye meelise aad u tira yar ayuu inoogu sheegayaa
siyaadihii kala duwanaa ee ay da'du xag walba uga saamaysay. hor iyo abbaataba wuxuu garwaaqsanayaa markuu nindhexaadka ahaa quruxdii iyo qaab wanaaggii uu lahaa, xarragadiisii iyo dharkii qaaliga ahaa ee u xidhan jiray, sida khayli guduudii ay dadka oo idili ku kuunyi jireen. wuxuu xusuusanayaa qalabkiisii dagaalka ee markuu xoogga ahaa aan had iyo jeer gacmihiisa ka maqnaan jirin, gaar ahaan gaashaamadii uu dheegga wiilasha ka samaysan jiray ee rag aan badnayn oo uu ka mid ahaa uuni ay heli karayeen. taasi jeer bay ahayd. haddana waa ayaanba ayaane wuxuu garowsan la'yahay nin aad u dheer oo kor loo wada eego waa kii ahaan jiraye baxaaligiisii siduu gabowgu u dhalan rogay, dhabarkiisii siduu u soo goday ee uu qaansada uga ekaysiiyey iyo ugu dambaystii ragga ninka ugu gaaban siduu uga dhigay. waxaase intaba uga daraa meekhaankii sare ee uu jeer qoyska dhexdiisa ku lahaa siduu hoos ugu dhacay. taasna wuxuu ku tusaalaynayaa wax mudan inaynu la yaabno kuwii ugu dhowaa xigtadiisana uu duqu ka arkay. wuxuu dareemay dumarkii guyaasha badan u dhaxay, raggii uu dhalay ee uu soo barbaariyey iyo kuwii ay iyagaasi dhaleen ee uu awowga u ahaaba inay geeridiisa si wila yihiinoo u belatirinayaan. markuu la hadlo iyo markuu wax uga baahdaba tixganin la'aantii ay kula kacayeen ayuu ka gartay inay iilka la jecel yihiin. waxaa u caddaatay cid noloshiisa dan kalihiiba inaanay jirin kadib markuu iskii wax u qabsan waayey ee uu reerkii callaal ku noqday. xoog iyo xarrago wuxuu soo marayba wuxuu haatan ku dambeeyey dhulyaal aan socodba tahli karin. guxushaa kolka ay reeruhu geediyaan meel dhexe kaga hara, maalin kadib rugihii ay degeen soo gaara, hub oo dhanna ka wata, ul dheeroo uu ku tukubo. waxyaabahaas oo idili markay la soo gudboonaadeen ayaa allaha u naxariistay wuxuu maxamed xaashi tiriyey tixwaayadii dambe caan noqotayoo uu arrimaha kaga calaacalay. waxaa naga soo gaaray waxaan khayli dhuugyaha cas iyo dheeg weyana qaatay ee dhalanka aadmigu u baxo sida tan lay dhowray, kolkii horeba dherarkii miya dhabarkii soo gaabtay. ma ka dhaxay dhawaaq uubatiyo dheermataan gebina dhaba reere guureen, miya laygu wada dhaafay ushaan dhaabin mooyee, hubkii ma iska wada dhiibay raggaan dhalay ragguu dhalay, miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay, miya dhimashaday dooniga isii yaay, miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsan jiray ceeb miyaa igu dharaarowday buur. allaha u naxariistee isla maxamed xaashi ayaa waxaa laga hayaa hawraar murtiyeed uu ku soo koobay ugu dambaysta waxa uu gabowgu yahay ama wixii isaga kala soo gudboonaaday. noloshiisii markay si walba kaalmada dadka ugu xidhantay ee kortagiina uu cid kale magan ugu noqday, wuxuu ahaa ninkii ku calaacalay show ilaahay intii aan cimri dhirar ka baryaayey. dhegaystayaal, maanseyahanadii soomaaliyeed ee magaca dheer lahaa gabayadooda qaarkoodna kaga calaacalay gabowga iyo had iyo jeer dhibaatooyinka ku mataansan waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa Salaan Carabey oo lagu wado bartamihii qarnigii 19 inuu dhashay. wuxuu ahaa nin reer miyi ah oo haddana reer magaal ah, nin sodcaal badan oo dalka dibaddiisa muddo dheer ku noolaa, isaga oo mar ganacsada ahaa, mar kale faranjiga turjubaan u ahaa, intaas ka hor bana ka mid ahaan jiray shaqaalihii Soomaalida ee maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay feermaanada ka ahaa. 1897kiina wuxuu ku jiray raggii inta soo dalmariyey Nairobi keenay dhulboobihii Ingiriiska ahaa ee Lord Dalamiya la oran jiray, kaasoo loo aaneeyo magaalaynta Kenya iyo horumarinta hanaanka beeraheeda. caddaankii, hindigii iyo carabtii uu la shaqaysan jiray ayuu afafkoodii wax ka bartay. taasina waxay geysiisay inuu ku dhiirado gabayadiisa qaarkood inuu ku daro erayo shisheeye oo afafkaa uu ka soo amaahday. waxay ahayd arrin aan lagaga horrayno maanseyahanadii ay isku gadaha ahaayeen aanay aqoon, isaga qudhiisuna uu isku dhaliili jiray, sidii allaha u naxariistay uu ii sheegay axmed cabdilaahi qaalib inadiir qaraan oo 70-nadii qarnigii tegey la taliyayaashii guddiga af Soomaaliga ka mid ahaa. Salaan iyo isaguna ay jeer cadan wada joogi jireen.
salaan iyo tixihiisii gabowga ku saabsanaa aan wax idinka sheege waxaa la wariyey isaga oo markaa 70 kor u dhaafay inuu ka guursaday qolo waayo horena uu la xididay oo xoolo iyo xaraga doora isagana ka tegay oo xaggooda u tirinayay wuxuu qabay dhibaat iyo wax kala tooni inaanay uga soo noqon wixii badnaa ee horey looga daduucay taas isaga oo ka ciil qaba ayaa maalintii dambe waxaa loo soo sheegay inuu soo hadal hayay uuna ku soo socdo nin seedigiisa oo yaradoona lana walaal ahaa gabadhii uu dhowaanta aroosay ma labalabayne haddiiba saraan go'aan buu gaaray wuxuu ku tashaday inaan maantaa wax hoola laga kaxayn dabadeedna ninkii oo aan weli soo gaarin ayuu u tiriyey gabay uu kula garnaqsanayo yaradkii laga idaayeyna uu ugu diidayo gabaygaa iyo ninkii loo tiriyey oo soomaalida xilligaasu ay labadaba leegleegsada u bixisay wuxuu gabyaagu ku xusay 2 sababoodoo dartood aanu yarad ku bixinayn sababta hore waa xoolihii faraha badnaa ee markaas ka hor uu bixiyey uuna ku tabaayey reerahaas uu shalayna xididka la ahaa maantana uu la noqday sababta kalena waxay ahayd da'dii uu maantaa joogayoo aanu oggolayn dhahab xidid oo hor leh iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar qurux badan oo uu gabowgiisa kaga calaacalayo arar ay ka muuqdaan dhowr erayoo uu ka bartay shisheeyihii ay isdheeheen sida lagjar lahwi looyar loofar iyo laawis markaas buu ku xijinayaa meelisadii uu da'da kaga sheeganayay kuwaasoo tixda oo idilba ay soomaalidu ku xusuusato wuxuu yidhi luukaansi gabay faaraxow laakiin mar ahayna laflaf iyo lahwiga loo tirso iyo jaray lurkiisii iyo la'da xarafka laankiiyo ba'da baan looyar ku ahaaye nin awowgii loox ugu dhigay oo leelyan baan ahay lagjar faranji niman baa akhriya laawis iyo beene oo weliba laasima intay libisku moodaane anse waxaan u laaqimahayaa tixay ku luuqsaane mar hadduu lilaahida ka baxo waa lisaan jaban halkan buu gabowga kaga hadlayaayo wuxuu leeyahay nin 20 buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari aqiin haatan lowlabaye nin xeradu lamaanaha dhigto leelyan baan ahaye 60 12 baan kor maray waana la hubaaye lafta dhabar raxaadkay dabciyo laafihii gacanta lubidaydu leel xalay ma ledin raadadiya taahe waa taana leemada indhaa araggu liitaaye haddaan luqunta beri taagi jiray liicday araxdiiyo nin laboonti sheegtaba saban laariyaa heliya liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleeda meelisyada gabayga ugu dambeeya ayuu seedigiisi cad ugu dayrinayaa wuxuu u sheegayaa isaga oo xooladoona inuusan kollaba ku soo lugo'in wuxuu ku quusinayaa iska daayarad uu gabadha ka siiyee hadduuba xaggooda u soo kaco inuu isaga ka sugaayo awr ay hanti badani ku raran tahay oo dhibaat ah war oo dhan ayuu ugu soo gebagabeeyey laanjeertidaan qabo barbaarladani waa mooge adigaan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waa necbahay laanta dheer sida seedow haygu soo lugo'in lahasha waa ceebab kolka uu gaboobo waxaa qofkii hadhiirihiisa ku yidhaahda dadka intii ay isku ayniga ahaayeen ee ay kol wada tabar galeen wuxuu waayaa intii ay isku guga dhasheen ama dhallinyaronimadii ay isku soo gaareen marba waxaa ku soo dhaca hebello uu aqoon jirayoo waa hore geeriyooday ama sidiisa oo kale da' bastood la ah isla salaan ayaa arrintani la soo gudboonaatay dabadeedna ka sheegtay dhab ayuu u murugooday kolkuu inta gaboobay uu waayey cid uu la jalbeebto waayihii uu soo maray cid la garanaysa oo uu kala sheekaysto isaga oo haddaba cadan jooga oo da'ah aakhiro iyo howlaheedana ka walwalsan ayaa maalintii dambe waxaa u yimid dumar dhowrahoo magaalada lagu qabo waxay uga eer sheegteen gabyaa cabdilaahi baashe la oran jiray oo isaga hablaha iyo salaanba ay xigaalo ahaayeen kaasoo u gebiyey qaar ka mida dumarkaasi raggii ay u dhexeen goobjooggii waagaasi siduu ku warramay wuxuu cabdilaahi nimankaa u gebiyey markay seedinimadiisa u aqoonsan waayeen ee intuu waxtar ka jeeqaaqay ay waxba uga soo dhici waayeen salaan wuxuu u yeeray ina baashe wuxuuna ka codsaday gabaygii uu tiriyey inuu ka noqdo hablaha iyo
ragga qabana uu ka raaligeliyo taasoo uu ku diiday maalintaas ayuu tiriyey giddi gabayadiisa kuwa loogu jecel yahay midkood ha yeeshee waa tan la yidhaahdaa farta iyo meesha bugtaa is oge in yar oo gabayga ka mid ah ayaa waanada iyo canaanta cabdilaahi ku saabsan in badanna wuxuu u huray tilmaanta dhibaha uu gabowgu u keenay waa gabay alla kacabsigu ku badan yahay oo u eg kuwa carabtu ay shicru zuhdiga u taqaan qaybta ararta oo uu gabowga kaga sheegtay ayuu ku yidhi cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiisii carabkayga waataan ka jaray codashadiisiiyo maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu u tirsaday waan cabsanayaaye cishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jire calli yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wadisaariya calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimid rabbaa caaqibuu garanne qorra casalkii joogtaan ahoo ciidi garabkii iyo raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waayey cidla yuurur bay dilay sidii cawsha dibadeed allaha u naxariistee gabayadaa kadib in doora ayuu saraansii noolaa wuu indhabeelay wuxuuna geeriyooday horraantii afartanadii qarnigii 20aad isaga oo inooga tegey gabayo iyo geeraaro dhaxalkeenna suugaaneed wax weyn dhegaystayaal dhibaatooyin aanu hortii hore qabi jirin ayuu gabowgu qofka waayeela u keenaa xubnaha oogadiisa ayaa dabca kolkaas buu tabar dareeyaa sidii canug socodbarada ayuu u tallaabsadaa lugihii labada ahaana 3 bay noqdaan markay siiqa dheeri ku soo korodho waxaa u beesha meel dheer oo idil inuu socod ku hawaysto markaas baa in la soo booqda mooyee waxaa yaraada isagu inuu dadka u tago badanaa gelinna ma fayooba qorraxdu kolkay dhacdo ayay xubin waliba danqataa waagu hadduu baryana wuu yara roonaadaa shanqar dheer oo dhan baa dhibta qayrada iyo horumarmarka ayuu gansadaa wuxuu aad u kahdaa bardoodanka iyo farakacayaarka dhallinyarada cunnada in badan ma moogaan karo haddii la siiyana wax quman kama cuni karo oo calool iyo hamuuntoona uma hayo wuxuu u baahan yahay goor noolba ruux agihiisa ka dhow oo caano iyo calalis kolba wixii uu raboodo ula soo orda gabyaagii reer xibanoodka ahaa oo la odhan jiray faarax xasan cali faarax afcad ayaa markuu gaboobay wuxuu mariyey tixuu ku tilmaamay dumarka qaarka uu ka feejignaan doono haddiiba uu go'aansado da'dii uu ahaa inuu ku guursado 2 meelis oo tixdaas ka mid ah ayuu inoogu sheegayaa inuu iska ilaalin doono kolba haweenayda gedaha uu joogo aan garan karin oo caano badan mar qura ma wada dhami karee kolkuu cabbaar joogaba aan dhoqol yar xooga ugu keenayn wuxuu yidhi caanaha idday kama bogto oo baday gugaygii iyo hadba balaq midaan ii shubayn waan ka buubsanahay intaas keliya ma ahay qofka gaboobaa siyaaro kalena waa u tabaalooba araggiisu himbiriirsi buu noqdaa maqalkuna kaba sii daranoo sida la sheego waayeelka isaga ayaaba laga bilaabaa afka inta dhegta loo saaro in lagula faqa mooyaane hadalka dadku hunnuhunnu buu ku soo gaaraa habeenkii markii hurdaqarka lagu jiro isaga waa u labalagdayn iyo taah ay dariisyadu maqlaan arooryada hore goorta ruux waliba hawlihiisa adduun uu kabaha u ilado isagu kabtii uu waagu ugu baryey kama kaco hadduu ka kacana kama fogaado shirka iyo madlaha uu raggu ku kulmo ayuu ka abaajiyaa kolkaas buu qofkii soo hormaraba maxaa la sheegay iyo maxaa soo yeeray ku yidhaahdaa waalidnimo qof ku maamuusaya oo aad baari u amooye badanaa cidi uma joogsato haddii loo joogsadana hadal teelteela iyo warar darfa go'an oo aan dhammaystirayn ayaa loogu warramaa inta badan iyadoo aan runba ahayn ayaa waayeelka la xantaa oo la isugu sheekeeyaa odayga inaan miyir ku soo dhowaan amaba habartu ay waa hore dhala falluuqowday hal abuuradii Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka da'da weyn la socda ka maansooday waxaa ka mid ahaa Sheekh Axmed Gole oo ahaa aqoon-yahan diinta islaamka ku xeel dheer dhagax buur ayuu fadhiyi jiray wuxuuna ka mid ahaa Soomaalida galbeedka degta culimadii caanka ka ahayd ee sida weyn looga aflaxay markuu aad u weynaaday masafo uu tiriyey gabowgana uu kaga cawday ayuu Sheekh Axmed ku yidhi indhihii mid waa jow midna jeex yar baa haray jaaha iyo gacantii waa wada jirkoodaas
dhegihii waxbaa jooga waase sii juf mahayaan ushaa iyo jifada dheeri waa jimicsigaygii bur haddaan ku joogsado waa luqunjubaarmaa dhul haddii aan jiri maagana waa bari jugleeyaa jilbageel jirayntana dhabarkaa ikala jaba haddaan jimicso doonana jiirkaa ikala baxa haddaan jeenan waayana sidii inan yar baan jalan jil haddii aan qaatana waa juluuluqeeyaa jirkaygii hofnaan jiray waa meelo joollo ah jismigii madoobaa hadmaa jooq cad lagu rogay ilkihii i wada jabe warmajaba duqoobaa naagihii aan jeer keenay way jiir nacbaadeen wiilashaan jeclaan jiray jawaab igama qaadaan odaygu waa jinnoobana waaba lagu jalbeebtaa jaliilow allahayow kolba joogi maynee jidkii nebina qaadsiiyo jahannama ha noo geyn allah u naxariistay xaaji maxamed axmed liibaan oo ahaa gabyaa waagii gobonnimada loo halgamayey aad uga qayb qaatay ahaana ninkii hal abuuray axyaa waddanii heestii la odhan jiray ee halgamayaashii leegada halkudhegga u ahayd ayaa beri iiga sheekeeyey arrimaha gabowga iyo soomaalidii ka cabatay raggii uu xaajigu iiga warramay waxaa ka mid ahaa abwaan reer xarar dheere ahaayo xirsicad la odhan jiray aadna u duqoobay wuxuu yidhi xirsicad baa maalin maalmaha ka mid ah inta la soo booqday waxaa lagu yidhi xirsiyow saaka maxaad joogtaa su'aashaasoo calaacal xagga da'da uu kaga jawaabay wuxuu yidhi laba way qarqartaa laba way qaadi weyday laba waa i qoydaa laba waa i qallashay laba waa i qardaraatay laba waa iga hadhay labana waa igu hadhay markaas buu sidii ruux gamaayoonaya indhaha isku qabtay raggii waraysanayay oo wixii uu u jeeday garanla ayaa su'aal ku celiyoo ku yidhi xirsiyow bal noo faahfaahi waxa kan aad labalabaynayso kolkaas buu yidhi laba way qarqartaayoo waa labada gacmood laba way qaadi weydayoo waa labada lugood laba waa i qoydaayoo waa labada indhood laba waa i qallashayoo waa labada dhegood laba waa i qardaraatayoo waa duburta iyo dakarka laba waa iga hadhayoo waa qurux iyo quwi labana waa igu hadhayoo waa hawo iyo hunguri barnaamijyadii kan ka horeeyey qaarkood sidaan ku soo xusay haddii uu gabowgu yahay heerarka nolosha heer ka mid ah isaga qudhiisuna waa kala heeroo 70 jirada 80 jirada iyo 90 jiradu way kala waaye duwan yihiin intabana waxaa ka waaye duwan kuwa 100 jirsada amaba kor u dhaafa iyadoo sidaasa ayay haddana waxay u eg tahay da'da 80-ka ahi inay tahay heerarka gabowga midda looga sheegashada badan yahay carab iyo soomaaliba waxaa jira maansayahanadii cimriyey tixa calaacal ah oo ay ku alaladeen markii ay 80 jirsadeen oo tabaaraha gabowga ay u babac dhigi kari waayeen zuhayr ina abi salma wuxuu ahaa gabyaa weyn oo carbeed islaamka ka horna noolaa markuu 80 gaaray ayuu rafaaday noloshiina intuu ka qashdhacay geeridii ka jeclaaday kolkaas buu gabay uu tiriyey wuxuu ku daray meelis caan ku noqday suugaanta carbeed oo ahaa sa'imtu takaaliifa alxayaati waman yacish 80 xijatan laa aban laka yas'ami oo macnaheedu yahay nacay oo ka qashdhacay nolosha iyo howlaheeda oo gacalkaa waaye nin 80 tirsaday sidee buusan uga qashdhicin haddiiba uu 80 gaaro ruux waliba wuxuu malaystaa goor aan fogayn in loo walwaali doono god aakhira iyo dadkii uu aqoon jiray meeshii ay u bateen waa da' haddii la gaaro la is uruuriyo oo inay wax badan noolaato aanay cidina quudarayn caalinkii soomaaliyeed ee allayaqaanka ahaa xaaji cali cabdiraxmaan fiqi masafadiisa caanka ahayd ee ku magacownayd aadana aqoon laawe waa kii ku lahaa 80 nin kor u dhaafay dadba waa ku sugukuun ee uu ula jeeday qof 80 dhaafay dadka inuu dhif dhegaystayaal aadan maxamed cabdille oo lagu naanaysi jiray aadan guray ayaa isna ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee sida dareentaabad kale gabowga kaga calaacalay gaar ahaan kolkii uu 80 gu tirsaday da'daas oo sidaad barnaamijyo hore ku maqasheen ay rag kalena ka calaacaleen hilaada 1830 ayuu ku dhashay degaanka ximanood waa dhulka ay ugu magaca dheer yihiin ceesha iyo laasaha iidoole docolley godin labe
gidhays mareer gur iyo meelaha u ogogale halkaas ayuu ku hana qaaday ku tabcaday ku gaboobay gadaalkiina ku geeriyooday gobollada dhexe iyo kuwa galbeedka ee ay soomaalidu degmaysato markii la eegana wuxuu ahaa qarnigii 19aad iyo horraanta kii 20aadba gabyaati xihiisa lagu halqabsado bulshaduna ay isu tabin jirtay waxaa la weriyey raaga ogaas in kol loo mariyey gabay uu aadan tiriyeyoo xarafka ta'da uu ka qaaday kaasoo uu aad ugu bogay markaas buu la yaabay ninka sidaas u gabyi og sababtii uu markaas ka hor u maqli waayey soomaalidii xooloraacatada ahayd ee xilligiisii ayuu aadan guray ka mid ahaa iyaga ayuunbuuna la-aanshi ahaa lana dhaqan ahaa xilligaas isaga iyo raggii la-ayniga ahaa ay noolaayeen wuxuu ahaa xilli dhibaato iyo shiddo badan xilli lagu wada sugnaa colaad iyo cabsi joogto ah ragguna uu goor kastaba rikaabku joog wada ahaa nin adag mooye ma ahayn xilli uu qof waliba ka bixi karay wuxuu ahaa xoolaha xilli si baan loo kala qaadi jiray oo kii xoog iyo ciidan badani uu gar iyo xaqba u lahaa wuxuu ahaa xilli gardarrada xalaal laga dhigtay oo dad aan yarayn ay maanla'aan u go'een gulufyadii joogtada ahaana ay ku hanti beeleen wuxuu ahaa xilligii uu dagaalyahankii soomaaliyeed inta faana yidhi dayax 15 ama ku waday ama ka waday oo uu ula jeeday walee habeenka caddadu 15 tahay oo dayaxu dhulka eebba ballaashay uu iftiinkiisa ku simo walee habeenkaa reero deggan oo nabad u fadhiya col mahiigaana ku waday ama anigoo soo dhacay oo xoolahoodii soo moolo duugay soo laabad ahaa weedhaas ninkii yidhi wuxuu ka mid ahaa kuman rag ah oo dhaca dadka kale meherad ka dhigtay xoogsi kalena aan aqoon jirin waxaa kumankaas isna ka mid ahaa dagaalyahan la ohan jiray ilaa uga dhaga jarco gabyaagii colwadka badnaa ee ammaanduulayaashii qarnigii 19aad kuwii ugu magaca dheeraa ku jiray waxaa loo hayaa meelisi caan noqdayoo xilligiisii tilmaan cad u noqon kara maalin maalmaha ka mid a ayaa niman ilaalaha oo uu dirsaday markay ku soo noqdeen waxay ugu warrameen reero geerashii ka bateen inay degaanka buurood isku ballaariyeen isla markaasna aan ciidan la sheegaa ku dayreen kolkaas buu col mahiigaana degdeg u qalqaalay isaga oo ciidankaa duulinayay ayuu tiriyey gabay ay ka muuqato inuu isku haaraamayo nabaddii uu muddada dheer u fadhiyey iyo siduu uga gaabiyey weeraradii ay noloshiisu weligeedba ku taagnayd 4 meelis ee tixdaa naga soo gaaray halqabsigana laga dhigtay ayuu ilaawa ku yidhi reerkayga waa uga dartaa daanya nabadeede dar allaan ku noolaan jiray iyo duulaan weeraro dugdugtaydu waa 2 habaas kobay ka duushaaye haddii aan dunduba yurug harsado dacas ma jiifeen dabuubta oo kooban waxa uu xilligaasi ahaa ninkii keliya iyo ooga adag leh xilli uu nolosha xaq u lahaa kii aan lahaynna markii la duulo xoolaha nugulka iyo maatada looga tegi jiray sidaasna uu ku sabooli jiray aadan guray wuxuu ahaa degaankaas iyo xilligaas adag nin ku noolaa oo weerar iyo duulaan aan damin u taagnaa wuxuu sidaas ahaadaba wuu gaboobay ileen xoogga iyo dhallinyaronimadu waa barwaaqo intii wakhti ah la haysto ee aan lagu waarinin wuxuu ku dhex gaboobay bulsho muruqa iyo waxtarka oogada laysku tixgelin jiraye aan dan ka yeelan amaba aan waxtar badan u helin karin qof da'oobay oo in wax la taarta mooye aan isaga waxba ka soo noqonayn ma jirin hay-ado dawladeed oo sida dunida qaarkeed maanta ka jirta u xil qaba xanaanada aabbayaasha iyo hooyooyinka uu gabowgu soo rido iska daa xanaano iyo daryeele waxaaba la sheegaa jeer inay jirtay buur dheeroo bartamaha soomaaliya ku taal taasoo laga tuuri jiray oday iyo habar kolba waayeelka inta aad u gabooba ay naftu dayn weydo si kastaba ha ahaatee aadan gurey kolkii uu 80 jirsaday ayuu aad u jilcay aadna u tabardareey haddana xoolayari ayaa la soo daristay markii uu duulaanna ku tabcan waayey cid u naxaysaana ay ugu deeqi weyday intaa waxaa ugu darmay wehelli'i markii ay xigtadiisii badiba uga guurtay oo webiyada koofureed ay xagga galbeedka uga tallowday wuxuu arkay dhaaxuun nindoor ahaaye agihiisa dadkii dhoomnaan jiray oo ka jeestay rag oo idil buu wax tabantaabo u geysta ka waayey dumarkii uu qabayna wax ay taraan da'aya haaraan aan kala go' lahayn bay sad uga dhigeen wixii uu ka filaayey oo turiinsho ahaana kama uu helin gabow cayrnimo wehella'aan iyo cudur ayaa mar qura isugu ciidansaday sidaa u dambaysay markuu arkayna wuxuu yeelay maansaruug isaga oo kale ah wixii laga filaayey gabay dheer oo soomaalida taqaana ee jeceshahay ayuu markaa aadan mariyey kaasoo si farshaxanimo ay ku idishahay uu ugu faahfaahiyey dhibaatooyinkii nolosha ee gabowga kala soo gudboonaaday wuxuu ku bilaabay 17 miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarrada ceel marshay oo timaha deebeeyey tin madow miyaan laga dayayn
aniga tuurkayga ma tilaabadan la qarqaroon tiigsin loga mooday ma tukubay sida habartu kale tuugma ugu jeeda bawdada miyaan tuujay iyo araxda tiirkeeda. intaa kolkuu da'diisa weyn iyo sida jirkiisu u dabacay ka yidhi ee uu tilmaamay tabaaraha xubin walba ka haysta ayuu u soo dhacay gabowga iyo saboolnimada u heshiiyey wixii ay dhaxalsiiyeen iyo dandaradii ay badeen. wuxuu yidhi tafmadow haddaan qaadan jiray mara tilmaan dheer leh tartarrada malibir baan ku xiray taaka labadeeda balkin luqunta kuma tiirso iyo tolano baarkiisee madhegtaan tagoogada gashaday sidii anoo tuuga wax martiduu tamadisaa ninkay toos u hooyataaye tulugiis miyaan laygu arag tuludii waa geele tuglo iyo gidhays baan ku qabay dhiisha ii tolanee tuluqii miyaa iga ba'ay oo haraggu soo toomay naaguhu ninkaan tuujinayn waa tim lahayaane taf miyaana rogahayn siduu cudurku ii taabay nin tarrada ka jabay waa bahdii wuxuu ku tiicaayay nimankii tol ii xigay miyaa webi taraaroobay. markaas buu isxusuustay oo tilmaan ka bixinayaa beriguu aadan ahaa sida ay arrimuhu ahaayeen berigii dhallinyaranimada iyo taawada colaadeed ay ku dhammaayeen berigii uu ahaa ammaanduulaha sheegan ee tala iyo tabarba uu lahaa tiisana la wada raaci jiray. wuxuu yidhi torogsa maalintaan fuuli jiray tahartu weynaatay col tirtirihii anigaa lahaa tabaya duulaane guuraha ana istaagi jiray idil tilmaanteede haddaan weerarkeedii tognoon toon ka soo didinay iba toosan leeyey haddayna hortaslaynaysay tog biyale haddaan keennay oo koran ku tarisiinay tiicay wadaaggeed haddii rag isku tuurtuuro sidaan wax u tabayn jiray miyaan taabi kari waaye allahayow tahliishii janno yaan adiga kaa tuugay. ma wuu calaacal dhallinyaranimo soo celin xoog galbaday iyo xoolo lumay ma wuu soo naqay? jawaabtu waa maya. taasna aadan isba waa ogaaye nafta ayuu ku maaweelinayay adkaysina uga doonayay waana dantaas danta loo tiliyaa tixaha gabowga lagaga cawdo iyo guud ahaanba maansada qaybaheeda calaacalka ku saabsan. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.